muhaajiriinta Soomaalida ah ee Mareykanka ayaa dacwad u gudbiyay maxkamad federaal ah oo ku taalo magaalada Boston. Haddaba maxay tahay dacwadan ay gudbiyeen? Arrin xasaasi ah ayaan idin soo gudbinayaa. Marka koowaad soo dhow muuqaalkan like garee, sidoo kalena sii share garee. Waa hagaag. Temporary Protected Status oo loo soo gaabiyo TPS waa sharci uu dejiyay Mareykanka 1990 si ku meel gaar markaasi ah looga dhigo ama loogu ilaaliyo muhaajiriinta. Temporary Protected Status oo loo soo gaabiyo TPS waa sharci uu dejiyay Mareykanka 1990 si ku meel gaar ah qaab markaasi loogu ilaaliyo muhaajiriinta ka yimid dalalkooda. waliba dalalka oo dhan maaha, muhaajiriinta ka imaaday dalalka ay ka jiraan dagaalada sokeeye, musiibooyinka dabiiciga ah iyo xaalado markaasi bini'aadanimo oo khatar gelin kara naftooda. Dadka haysta TPS sharci waxa uu dhigayaa lama masaafurin karo inta sharciyada uu haysto ama uu markaasi sharciyada ay u shaqeynayso. Waxay helaan ruqsad shaqo. Waxay si sharci ah ugu noolaan karaan Mareykanka muddo markaasi la cusboonaysiin karo. Soomaalida waxaa la siiyay TPS tan iyo sanadkii 1991 markii dawladii dhexe meesha ay ka baxday oo ay burburtay. Haddaba marka dacwadda Soomaalida maxay ku saleysan tahay hadda ay gudbiyeen? Muhaajiriinta Soomaalida ee ku nool Mareykanka ayaa dacwad u gudbiyay maxkamad federaal ah oo ku taala Boston. Qodobada ay ku doodayaan maxaa ka mid ah marka? Qodobada ay ku doodayaan waxaa ka mid ah 1. khalad habraac. Waxay sheegayaan in maamulka Trump uusan si sax ah u qiimeyn xaaladda Soomaalida ama Soomaaliya inuu wali qiimeynba. 2. xog khaldan. Dawladda Mareykanka ayaa lagu eedeeyay in ay ku dooday in Soomaaliya ay nabad noqotay oo waxay leeyihiin arrintaas oo waxa kama jiraan Soomaaliyana waxba iskama bedelin oo wali nabad ma noqon. 3. xaaladda dhabta. Muhaajiriinta waxay sheegeen in Soomaaliya wali ay ka jirto amni darro, dhibaatooyin bini'aadanimo, colaado hubaysan iyo waliba barakac. Ilaa hadda arrintaas waa ay taagan yihiin ay ku doodayaan muhaajiriinta Soomaalida. Sidaas darteed waxay leeyihiin dib u celinta TPS waa mid markaasi sharci darro ah. Dhinaca siyaasadda Mareykanka haddii aan eegno, arrintan waxay ku xiran tahay siyaasadda socdaalka ee adag ee maamulka Trump uu la yimid. Siyaasadahaas waxaa ka mid ah yaraynta muhaajiriinta sharciyeysan, adkeynta sharciyada qaxootiga iyo sidoo kale dib u eegista barnaamijyada sida barnaamijkan TPS. Maamulka Trump waxa uu horey uu markaasi isugu dayay in uu joojiyo TPS markaasi dalal kala. Haddaba dalalkaas waxaa ka mid ahaa Suudaan iyo sidoo kale El Salvador iyo Haiti oo dadka lagu magacaabo. Saddexdaas wadan iyo horey markaasi tallaabo ugu qaaday dhankooda. Sababtu waxay dawladdu ku sheegtay inay ahayd TPS waa barnaamij ku meel gaar ah oo temporary ah, barnaamij iska furan ma aha. Mana aha in uu noqdo ay markaasi ku doodaysaa dawladda mid markaasi iska joogta ah inuu noqdo haba yaraatee wax suurtagal ah ma aha ay ku doodayaan. Xaaladda markaasi Soomaalida doodda ugu weyn marka maxay tahay? Doodda ugu weyn waxay tahay Soomaaliya ma nabad ba mise wali khatar ayaa ka jirto? Dawladda Mareykanka waxay leedahay ama ay ku doodaysaa horumar amni ayaa ka jira Soomaaliya. Dawladda federaalka way shaqeysaa. Xaaladaha qaarna meelaha qaarkood way soo hagaagayaan. Dawladda sidaas ayay ku doodaysaa. Trump wuxuu meelaha la taagnaa maalmo ka hor oo markasta ku celceliyaa Soomaaliya dawlad kama jirto, booliis ma laha, nabad ma laha. See la isu waafajinaa marka hadalkii Trump iyo hadalkan see la isu waafajinaa? Waa arrin u baahan marka in si caafimaad qabta loo dhuuxo loo lafaguro oo bal arrintan dib loogu laabto. Maadaama Trumpna uu leeyahay oo madaxweynihii arrintanba ka dambeeyo in muhaajiriinta lala dagaalamo ka dambeeyo, maalmo dhaweed uu ku doodayay in Soomaaliya aysan wax dawladda ka jirin, halka dawladdiisina ay ku doodayso in Soomaaliya ay soo hagaagayso oo nabadgelyo buuxda ay ka jirto oo nabaddii wax badan laga qabtay. Waa arrin u baahan marka in la iswaafajiyo ay leeyihiin Soomaalida oo doodan ma noqonayso mid markaasi haba yaraatee maangala. Soomaalida dacwadda gudbisay marka waxay leeyihiin weeraro joogta ah ayaa gudaha dalka ka dhaca. Waa run wali weeraradii waa ay dhacaan inkastoo sidii hore
aysan xaalad u ahayn laakiin waa dhaca hadday noqon lahay kuwa qabiilaysan hadday noqon lahay kuwa kooxaysan ama kuwa dowladeed imise aragteen dad guryahooda lagu weeraray oo la dhibaateeyey oo lagu dilay waa ka dhacdaa Soomaaliya waa tahay marka waxay leeyihiin weerar joogta ayaa ka dhaca dhinaca kale waxay leeyihiin barakac iyo abaaro ayaa jiraba oo xaaladda way ka sii adagtahay sidii hore adeegyadii dowladeed weli waa daciif oo maanta adeegyo dowladeed oo shaqeeya oo dadka wax u qaban kara haba yaraatee ma jirto sida adeegyada dowladeed ee wadamadaas kale ee Ameerika ama Yurub sida adeegyada dowladeed ay u xoogan yihiin ay u shaqeeyaan halkan weli waxba ogama shaqeeyaan ay markaasi ku doodayaan Soomaalida markaasi ee ku nool ariga ee Mareykanka tusaale ahaan weerarada markaasi khatarta badan ay xusuusaalo soo qaateen weerarada ay kooxda IS loo soo gaabay magacooda ee markaasi Soomaaliya ka dagaalama inuu weli khatar weyn ay ku yihiin amniga Soomaaliya sidaas darteedna aysan marnaba suurtagal noqon karin ay leeyihiin Soomaalida maxaa ku dhici kara marka haddii TBS la joojiyo kumanaan Soomaali ah ayaa halis u gali kara in la masaafuriyo oo dalkooda lagu celiyo oo ciidamada IS laga howlgeliyo oo dalalkooda ama dalkooda Soomaaliya dib in lagu soo celiyo wayahay dad badan oo shaqooyin haysta way waayi karaan sharciyadooda shaqo oo shaqada sharciyada ilaa Mareykanka markaa joogtid iyo wadamadaas kale horumaray markaad joogtid shaqada aad ka shaqeynaysid intaada shaqadaas helin sharci ayaa ka horeeyay wayahay qoysas badan way kala go'i karaan tusaale ahaan qoysas ayaa waxaa ku dhici karto in qaybna wadankii lagu celiyo qaybna halkaasi ay joogaan qaar badan oo Soomaali ah Mareykanka waxay ku noolaayeen 20 sano ilaa 30 sano in ka badan iyadoo markaasi sharciga TBS markastaba la cusboonaysiinay Soomaalida TBS haysta waxay kaalin ku leeyihiin dhaqaalaha Mareykanka ganacsiyada qurbaha iyo lacagaha Soomaaliya ay markaasi u diraan intaasba waa ay markaasi kaalin xoogan ay markaasi ka qaataan haddii la masaafuriyo marka maxaa dhacaya Soomaalida waxay la kulmi karaan arrin markaasi kadis ku noqoto oo lama filaan ah iyo cabsi iyo sidoo kale walwal markaasi soo food saaro dhinaca Soomaaliya laftirkeeda waxa ay la kulmi kartaa soo noqosho dad badan oo aan shaqo haysan wadanka laftirkiisa inta hadda joogto yaa shaqo la'aan la circiirayso haddii dad kale ay qurbaha ka soo laabtaan waxay keeni kartaa in xaaladdu ay sii adkaato sidoo kale Soomaalida qurbaha markay joogaan saameyn ay markaas ku yeelan kartaa kuwa qurbaha joogo iyaga laftirkooda aniga marka aragtidayda waxaa jira 3 xaqiiqo oo aan la iska indhatiri karin Soomaaliya weli si buuxda uma xasiloona inkastoo horumar uu jiro haddana weeraradii abaarihii iyo saboolnimadii iyo barakicii weli way jiraan TBS wuxuu noqday kumeel gaar yani muddo dheer soo noqday la cusboonaysiiyay barnaamijkan asal ahaan waa kumeel gaar laakiin dad badan ayaa ku noolaa 10 sano xalka saxda ah waa xal markaasi dhexdhexaad ah yani muddo dheer waxay markaasi ku noolaayeen dadkan Mareykanka yani waxay xaq u leeyihiin in la siiyo wada sharci ah oo joogto ah isla markaana TBS loo isticmaalo sidii loogu talagalay gabagabadii ay soo gaarnay dacwadan waxay muujinaysaa mar kale isku dhac ama hardan siyaasadeed oo u dhaxeeyo siyaasadda socdaalka Mareykanka iyo xaaladda dhabta ah ee markaas Soomaalida wajahayaan maxkamadda ayaa markaas go'aamin doonto haddii maamulka Trump uu si sax ah u qiimeeyo xaaladda Soomaaliya ama hadduu ku degdegay joojinta markaas sharciga TBS haddana la soo gaartay dhamaadka muuqaalkan waa kaaga mahadcelinaynaa soo dhow muuqaalkan la garee sidoo kalena sii share garee si dad badan xogtaan ay u gaarto